magaalada Hargeysa iyo bartankeeda waxaan kula kulmay laba nin iyo gabadh oo dadka ugu gaagaaban oo urur dadka gaagaabana sameeyay bal marka ugu horeysa Shucayb magacaaga saddexan Shucayb Xasan Ducaale Shucayb imse jir baatay dhowr iyo soddon xaas baad leedahay ma xaasibka walihi laakiin imse dumar guursatay waxaan guursaday hal mar oo gabadh baan guursado haye waa caruura ina badashoontu way saqiirtay bal ii waran Shucayb oo marka la eego dadku waxay ku malaynayaan ilmo yar bay ku malaynayaan qofka ku agmaraya marka 40 jir aad ku dhawday marka waran waa runodeen waxa weeyeen aniga ba ciyaal iska noqdo moogtiya maxaa dadka kala kulanta dadka marka Hargeysa magaalada bartankeeda loogeena soo kale barigi hore oo ka cadhoon jiray qofka igu yiraahdo in qeyro muxuu ah laakiin imika waan la bartay bal ii waran marka ururkan aad sameysay dadka gaagaaban maxaad ugu tala gasheen waxaan ugu tala galeen in caalamka oo dhan aan qabsano waa nimanka gaagaaban ay qabsadaanba waa gabadhan iyadana magacaaga sheeg nimca abdaade nimca imse jir baatay 9 jir baan ahaa bal ii waran halkaad ku dhalatay Hargeysa may gobolka Gabiley bal ii waran maxaad dareentaa marka aad idinka wada socday imika kale dadkii ay idin la yaabayeen ay idin laaqayaan qaare idin daawanayaan dadku walaal sida la qalay laakiin waan ka xanaaqa marka la igu rado gabadha gaaban kale laakiin imika intan Hargeysa imiday way kalsooni ma iska qaba qofka igu rado fuusiye gaabo waan iska aamusan waan iska eegtaa marka ururkiina aad sameysay dadka gaagaaban maxaad uga jeedaan ana waxaan uga jeednaa in adduunweynuhu wax noo qabtaan oo horumarno oo iskaashano ii waran markaasi imisatiin waxaan ahay 12 qof oo gaagaaban oo Hargeysa oo kale jooga Hargeysa jooga gobolada kale war ma haysan wax jooga burcaan hayna burcana waxa jooga 15 qof waagaag adna magacaaga aniga Mustafa Xasan Axmed baa Mustafa Gaab Mustafa imse jir baatay daadeedu waa 29 adaa ugu madax taagan baan u malaynayaa kooxdan haye bal waran maxaad dareemataa waxaan samaysanay urur dadka ugu gaagaaban Soomaaliland markaan eegnay in ururka dadka gaagaaban Soomaaliland ka maqan yahay ayaan sinay xaq iyo xuquuqba sida ay soo dhacsan lahaydeen ayaan ururka u samaysanay waxaan doonaynaa dhawaan shaacino aan xafadii u furitaanka u qabano dhinaca kale markaan bulshada ku dhexnool laho aad bay nagu mashquulaan dhibaatooyin badan xagga qaar baabuurta jirdhaaba sidii noo qoyskiina miyuu gaagaaban imsaadiyo kale gaaban anigu baa gaaban nimca adigana qoyskiina miyuu gaagaaban imsaadiga anigoo kaliya weeyaan Shucayb adigana anoo kaliya gaaban walaalada aad u dhaadheeriin bal ii waran Shucayb markii kugu darayd ka waran sheekooyin baad iga sheekaynaysa markii kugu darayd gaabnidan masalan caruur lagu mooday ciyalku way jiitaan markay doonaan ninkaaga weyn 40 jirka way jiitaan kasi soo caruur ciyalka yar la ciyaar in khayr la ciyaar wada sidee baad isaga dhicisa marka wana laga xoogayay siyaasadii waxaan iskaga dhiciyaadeen ugu dambeyntii maxaad oran lahayd dadweynahan idin ilaaqaya waxaan anigu ugu horeyn dadweynaha u soo jeedin lahaa in ilaaqada naga daayaan ay u arkaan dad la mid oo ku dhex jira bulshada nimco dadweynaha xaroodha laasima nagu mashquulina Shucayb anigu waxaan oran lahaa dadweynaha ururkaasaanu samaysanay dadweynuhuna inay iskarab taagaan baan ayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin